odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha Muqdisho ayaa ka hadlay banaanbixii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Nabadoonnada ayaa soo jeediyay in laga digtoonaado wax kasta oo lagu carqaladeynayo ammaanka caasimadda iyagoo baaq nabadeed u diray siyaasiyiinta mucaaradka iyo dawladda dhexe. qaar ka mid ah odayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in aysan ahayn in Muqdisho dib loogu celiyo marxaladihii adkaa oo ay soo martay iyaga oo soo jeediyay in xal siyaasi ah laga gaaro mashaakilka siyaasadeed ee haatan taagan. in dhiig loo daadiyo raadinta hogaaminta dalka ayay ku tilmaameen nasiib darro isla markaana dhinacoodu aysan aqbalaynin, waxaana ay ku baaqeen in la badbaadiyo dadka iyo dalka oo la joojiyo banaanbaxyada xasradaha wata. anoo ku hadlahaya magaca ama guddoonka golaha beesha Sacad, waxaan halkaan isku nimaano mataqaana tixgelinahay odayaasha mataqaana u fadhiya golahaas ayaan mataqaana doonayaa in laga hadlo baaq nabadeed oo xaaladihii dambe hadda ka soo hagaagtay magaalada Muqdisho oo ku saabsan ayaan mataqaana iyaga u furahayaa inay mataqaana ka qaataan baaqaas nabadeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaad banaanbaxyada rabshadaha wata, dabka la shidayo, taayirada la gubayo, waa wixii aan soo marray 30 sano ka hor. waxaan ka baaqaynaa oo ka digaynaa dadka aanu dhibaato intii ku filan farqi ku haystaan, ma mudna in loo celiyo qax iyo barakac iyo dhibaato cusub, ma mudna in 2020 lagu raadiyo xabad kursiga. shalay rag baa hayay, maanta ayagii baa doonaya, mid kaleeto nasiibkiisu siiya haya. kulli waxay yani xaaladda markaan Soomaaliya uma baahna awr dambe colaadeed in loo raro. waxaan ka digaynaa baaqaan ujeedadiisu tahay wixii hore u dhacay inaysan dib noogu soo laaban. waxaan soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ummadda dhan ee Soomaaliyeed aan soo jeedinayno, gaar ahaaneed Muqdisho aan u soo jeedinayno. waxa weeye ka digaynaa walaalayaalow wadaharaadiyada rabshada wata baan ka digaynaa. dalku nabad buu nagu deeqaa, dareen naguma deeqo. waxaan leenahay ha la iskugu yimaado miiska wada hadalka, ha la iskugu yimaado, ha lagu wada hadlo. banaanbaxyadii rabshadaha watay oo dhiiggu ku daatay, waxaan soo jeedinaynaa inaan laga shaqayn wax dhiig islaam ama dhiig Soomaaliyeed ama dhiig reer banaadir uusan ku daadan. waxaan soo jeedinaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo siyaasadda iyo damaca mas-uuliyadda Soomaaliya ama haysa ama u hanqaltaagaysa si nabada oo sharaf leh oo wada hadal ku dheehan iyo heshiis in lagu raadiyo. ummadda Soomaaliyeed ama gobolka Banaadir dhammaantood waa inay ka soo saaraan baaqiyo marxaladan aad moodid maaragtay in hadda soo cusboonaatay oo waxaanu arki jirnay xukunka 4 sanaba ayadoo doorasho ay dhacdo lagu kala wareego. cid hadda maanta aan filayo inay doorashadii diidan tahayna ma jirto. waddankan 30 sano wuxuu ku jiray xabad iyo dhibaato, 20 sanana qori loo dhiibahayay, faynuus loo dhiibahayay baa 4 sanaba doorasho la galahayay. sidaa daraadeed waxaa hadda muuqata in magaaladii Muqdisho oo ubuucdii Soomaaliyeed ah ay maaragtay culaysi ka jiraan tiro badan oo shalay ugu dambeysay banaanbaxyo dhacay, dadna ku dhintay, dadna ku dhaawacmay. asagaan ka cabsanaynaa inuu sii fido, aan ka cabsanaynaa. waxaan rabnaa in la badbaadiyo dalka iyo dadkaba, in la badbaadiyo. wixii ka dambeeyay kolkii shalay Muqdisho uu ka dhacay banaanbax rabshado watay oo sababsaday geerida iyo dhaawaca dad shacab ah ayaa waxa ay soo taraya baaqyada loo jeedinayo dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya.